kulan wacan daawadayaal waa muuse xushow kusoo dhawaada wararka wargeysyada iyo suuqa kala iibsiga waxyaabihii ay ka qoreen waxaana ugu waaweyn Chelsea iyo kooxda Arsenal oo labaduba ku dagaalamayeen Newcastle weeraryahankeeda Alexander Isak. Manchester United waxa ay isku dayi doontaa Alphonso Davies inay la saxiixato halka Bayern Munich ee ciyaaryahanka wadahadal heshiis kordhina kula jirto Graham Potter isna waxaa lala xiriirinayaa kooxaha West Ham iyo Wolves aynu ku bilown. kooxda Arsenal iyo tan kale ee Chelsea labaduba waxay bartilmaameedsanayaan ciyaaryahanka kooxda Newcastle weerarka kaga ciyaara ee Alexander Isak kaasoo 25 sano jir ah. Newcastle waxa ay sheegtay in weeraryahanka reer Sweden aan lagu iibsan karin wax ka yar 70 iyo dhowr milyan. 25 sano jirkan CAF Offside waxa uu warinayaa in uu ka dhaqaaqi karo kooxda Newcastle. Bayern Munich waxay meel wanaagsan marsiinaysaa la saxiixashada ciyaaryahankeeda reer Canada Alphonso Davies kaasoo heshiiska loo kordhinayo. Manchester United ayaa doonaysa in 24 sano jirka bidixda difaac ka ciyaara ay la wareegto Florian Plettenberg oo Sky Germany ka tirsanaya sidaas wariyay. Manchester United sidoo kale waxa ay indhaha ku haysaa Chelsea xidig ay la dhacsan tahay kooxda Leje difaaca bidix uga ciyaara 20 jirka Denmarkna kasoo jeeda Patrick Dorgu. Team Talk ayaa sidaas wariyay. Chelsea iyo Brighton macalinkoodii hore Graham Potter waxaa lala xiriirinayaa Wolves iyo West Ham oo labaduba tababaro la'aan goordhow noqon kara. Talk Sport ayaa sidaas isna warinaya. Borussia Dortmund macalinkeedii hore oo la yiraahdo Edin Terzic ma ahan macalinka ay sida rasmiga u baacsanayso kooxda West Ham sida uu warinayo wargeyska Team Talk. Kooxda Liverpool waxa ay la xiriirtay kooxda Bayern Leverkusen si ay ula wareegto 23 sano jir midigta difaaca uga ciyaara kooxdaas oo la yiraahdo Jeremy Frimpong kaas oo noqon kara bedelka dhow ee Trent Alexander-Arnold oo diiday inuu heshiiska u kordhiyo kooxda Liverpool sida CAF Offside uu isagu warinayo. Manchester City waxay ogolaan doontaa in Kevin De Bruyne oo 33 jir uu ku biiro koox iyada lala leeyahay halkii uu isaga dhaqaaqi lahaa kooxda Premier League meel aan la aqoon uu cagaha dhigi lahaa. Telegraph ayaa sidaas wariyay balse David Beckham kooxdiisa Inter Miami ayaa xiiseynaysa De Bruyne inay geyso horyaalka Mareykanka. Wargeyska Mirror ayaa isna sidaas wariyay. Everton iyo Guinea Bissau weeraryahankeeda Beto 26 jir iyo Mali xidigeeda qadka dhexe Abdullahi Dikura oo 30 jir labaduba waxaa beegsanaysa kooxda Roma ee horyaalka Talyaaniga. Gazzetta dello Sport ayaa wariyay. Liverpool waxay kalsooni badan ku qabtaa in Ibrahim Konate oo 25 jir Faransiiska kasoo jeeda ay heshiiska u kordhin karto waxaana hadda wadahadaladu ay yihiin kuwa horumaraya. Fabrizio Romano waryaha la yiraahdo ayaa wariyay. Juventus iyo Marseille waxa ay ku tartamayaan Chelsea 23 jirkeeda difaaca ka ciyaara oo la yiraahdo Benoit Badiashile. CAF Offside ayaa wariyay. Chelsea sidoo kale waxa ay la xiriirtay Benfica si ay ula saxiixato Portugiiska difaaceeda dhexe Thomas Aruko oo 22 sano jir ah. London kooxa ka dhisan oo kale ayaa kula tartamaya. Axel Disasi oo 26 jir ayaa kooxda isaga ka tagi kara bisha January. Team Talk ayaa sidaas wariyay. Arsenal xidigeeda Fabio Vieira mustaqbal badani uma yeelo kooxda 24 jirka Portugiiska ee qadka dhexe ka ciyaara ayaana hadda amaah kula jooga kooxda FC Porto. Wargeyska Daily Mail ayaa wariyay. Barcelona agaasimadeeda dhinaca ciyaaraha Deco waxa uu la kulmay wakiil ka socda difaaca Jonathan Tah la yiraahdo ee 28 jirka reer Jarman ah waxaana kooxda Bayern Leverkusen uu kala hadlayaa sidii xidigan ay ula wareegi lahaayeen walow suuqa xorta xidigani ku dhaqaaqi kara xagaaga dambe. Mundo Deportivo ayaa wariyay oo wadanka Spain ka soo baxa isagaas ayaa ugu dambeeyay wararkii wargeysyada iyo suuqa kala iibsiga. waan idin la socodsiinayaan Muuse Xushow. daawadayaal noo subscribe gareeya qaybtan YouTube waanaad ku mahadsantihiin la socodkeena.